shirkan oo degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug Puntland ay ku yeesheen beelweynta Saleebaan Cabdalle ayaa ku soo gabagaboobay degmada Tawfiiq uqaal isimo ugaasiyo waxgarad aqoon-yahanada beesha Saleebaan Cabdalle oo ka kala yimid deegaano kala duwan ayaa soo buuxdhaafiyay soona gaaray degmada Tawfiiq shirkan oo ah wajiga labaad ee ay ka tashiga beesha Saleebaan Cabdalle ayaa looga hadlay midnimada iyo isku duubnida beesha waxaana ugu dambeyn laga soo saaray bayaan warmurtiyeed ah oo ka kooban dhowr qodob isimo uqaal waxgarad qaybaha bulshada oo ka hadlay madasha xiritaanka shirka ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa kana qabsoomaysa degmada Tawfiiq sababteeduna waa shirkii labaad ee Saleebaan Cabdalle isimadiisa iyo waxgaradkiisa iyo culimaadiinkiisa waxaan halkaan ku soo dhaweynayaa si kalsooni leh anigoo ah شيف عاقل سعيد نوح دقود أو شو جيرين كي وحان كسو دوين يا odayaasha culimaadiinka dhalinyarada iyo mas'uuliyiinta tireer Tawfiiq gabdhaha hooyooyinka ardayda dhammaan anigoo ka wakiila waxaan ku soo dhaweynayaa kal iyo laab qalbi furan ku soo dhawaada isimada Saleebaan Cabdalle ee ka yimid daafaha Soomaaliya oo shirkii labaad assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh raxiim halkan waxa isugu yimid beesha Saleebaan Cabdalle isimadeedii waxgaradkoodii nabadoonadoodii shir ka socday 3 maalmood baa ku soo gabagaboobay galabta insha Allah khayrna waa ku dhamaaday isimada Saleebaan Cabdalle gogosha Tawfiiq annaga oo reer Tawfiiqa baa gogol fidinay isimada Saleebaan Cabdalle in la isu yimaado shirkii garow uga socday oo isimada beesha Saleebaan Cabdalle uga socday reer Tawfiiq maadaama aanu nahay degmadii xudunta ahayd waxaanu codsanay isimadu inay shirka labaad ka dhigaan degmada Tawfiiq waana naga ajiibeen awoluhu isimada waa u mahad celinay isimada Saleebaan Cabdalle oo taraag dheer ka kala yimid Shaygoosh ka yimid Baran ka yimid Boosaaso ka yimid Qardho ka yimid Xamar dhammaantood waa u mahad celinaa ilaahay waxaan uga baryaynaa isimada cimrigooda Allah raajiyaanu leenahay kuwii beesha Saleebaan Cabdalle cadaalad ku maamuli lahaana ilaahay ha ka dhigaanu leenahay isimada waa ku soo dhaweynaynaa shirkii Tawfiiq ay naga ajiibeen noogu yimaadeen annaguna waa ku soo dhaweynay waana ku soo dhaweynaynaa cid allaala ciddii ka maqan magaca Saleebaan Cabdalle ama isim ha noqoto ama nabadoon ha noqoto majaroosigii waa yimid ciddii ka maqanna waxay la tahay intaa timid bay la fakar iyo aqli tahay ilaahay baa mahad leh waxaan halkan ka salaamayaa ugaasyada suldaamada nabadoonnada waxgaradka dhalinyarada hooyooyinka gabdhaha assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkan waxaa la isugu yimid wada tashigii Saleebaan Cabdalle wajigiisii labaad oo ku soo gabagaboobay guul iyo gobonimo waxaan halkan baaq uga jeedinayaa Saleebaan Cabdalle meel kasta uu joogo midnimo iyo wada tashi waxaan kaloo halkan baaq uga jeedinayaa maadaama ay qayb ka tahay waxyaalaha la isugu yimid qaybaha doorashooyinka dawladda federaalka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha labadeeda gole waxaan kaloo halkan baaq uga jeedinayaa guddiga doorashooyinka waxaan kaloo halkan baaq uga jeedinayaa maamul goboleedka Galmudug oo maanta uu yaallo kursiga 104 inay beeshii lahayd ay halkan ku tashatay ugana qaybgeli doonto kursigeeda meesha uu yaallo ugana tartami doonto walaalaha iyaga dega iyo maamulka Galmudugba waxaan codsanaynaa inay
kursigaas beeshii lahayd ay meeshaan ku shirtay go'aanna ka qaadatay kursigeedu meeshuu yaallay inay uga tartamayso aadaysana bismillaahi raxmaani raxiim sala allahu calaa rasuulillaah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam walaalayaal marka hore waxaan soo dhowaynayaa madashan sharafta leh dadka fadhiya gabdhaha isimada iyo bahda saxaafadda odayaasha guurtida iyo inta kaloo fadhida dadweynahan maanta meesha fadhiya baan soo dhowaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan ilaah baa mahad iska leh gaar ahaan waxaan u soo dhowaynayaa reer tawfiiq iyo nawaaxiga tawfiiq dadweynaha deggan sida sharafta leh oo meelgaha leh oo walaaltinimada ah ay noo soo dhoweeyeen waa u mahadnaqaynaa waana jacayl bay nagu soo dhoweeyeen mana allaawi doonno jacaylka iyo walaaltinimada nala ku soo dhoweeyey waana ku mahadsan yihiin haddaan intaa ka gudbo waxaa weeye shirweynihii beesha Saleemaan Cabdalle uga socday degmada Tawfiiq ee isku dubnaayeen Saleemaan Cabdalle ku soo gabagabay maanta degmada Tawfiiq iyadoo ay taariikhdu tahay bishii 11 tobankeedii 2020 shirka waxaa ka soo baxay sidan iyadoo beeshu isla raacday nabadgelyo horumar iyo walaaltinimo iyo wadatashiga loo yimi ee isla raaceen wanaagaas waxaanu leenahay Allah mahadlaanu leenahay waxa kaloo la joogtaynayaa ee beeshu isla qaadatay in wadatashigaas maanta bilowday inuu sii socdo reer Tawfiiq ka gudoomaynaa dhaweynteena dhaweeyeen dhawaaqay noo dhawaaqeen meelaha dheer kaga nimid dhaweynteena dhaweeyeen ay yiraahdeen garow shirki nooga socday noo imaaday ilaa Tawfiiq aanu nimid dhaweynteena soo dhaweeyay shirka kolku noo soo dhamaaday aanu galay waxaanu ku goosanay midnimada Saleemaan Cabdalle in la xoojiyo meelaha aanu ka kala nimidna wax alla wixii taageera iyo wixii degma iyo wixii taakulayna iyo wixii beekhaamin oo imanayno intaba inaan si degdeg ah aanu gal ayaan goosanay waxa weeye oo kale haddii aan inta ka gudbo waxaan ugu baaqaynaa Puntland waxaan ugu baaqaynaa dawladda Puntland oo madaxweynaha dani ugu horeeyo inay Tawfiiq meesha leeyahay wixii ay lahayd xaquuq ah ee degmanimo inayna siiyaan koox inta ka gudbo waxaan goosanay inaanu sanadkii Saleemaan Cabdalle waxa la wax uqushiisu inay isku timaado Tawfiiq haddii wax dhacaan ama laga maarmi waayna 6 bilood uu noqdo saasaanu goosanay ilaahay idankiis waxaan baaq halkaan uga dirayaa oo baaq dheer u dirayaa dawladda federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo guddoonka labada aqal guddiga doorashooyinka guddiga khilaafaadka guddoonka maxkamadda waxaan halkaas iyo golayaasha kale dawladda waxaan baaq dheer ugu dirayaa xilli waxaa joogta doorasho oo haatan aad iyo aad u soo dhow waqtigeedina joogo waxaan aad ugu dirayaa oo u ogeysiinayaa haddaanu dhammaan isimadan nahay si cadaalad leh oo muslimnimo leh in lagu maamulo doorashadaas dheer u dirayaa maamulka galmudug dhammaan madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo xubnaha dawladda oo dhan waxaan kaloo aan aad u baaq ugu dirayaa dadka walaalahaya oo sure oo halkaa degan dhammaan waxaan u sheegayaa kursiga halkaa kuraasta halkaa taal oo doorashadeedii joogto oo aanu reer Tawfiiq haddaanu nahay aanu halkaa doorashada ka gelin si cadaalad leh oo walaalnimo leh inay
بعد السلام waxaan u mahad celinayaa soo dhaweynta qiimaha iyo qadarinta mudan ee walaalaha heer Tawfiiq ay noo sameeyeen waad ogtihiin waxa lagu jiraa xilligii doorashada beesha Salmaan Cabdalle ee degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug waxay federaalka ku lahayd kursigaas oo lambarkiisu yahay 104 runtii haddana lagu qoray deegaan doorashadiisa galmudug walaalaheena galmudug oo runtii halka lagu calaamadeeyay sanadkan waxay beeshu isimadu ay go'aansadeen iyo dhammaan cuqaasha beesha Salmaan Cabdalle in kursigaas loogu tartamo meeshaas si sharaf iyo wanaag ku jirana loo tago haddaba anagoo baaq u dirayna madaxda dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء محمد حسين روبله قدوميها برلمانكا محمد مرسل لبدا غole فدرالكا waxaan sidoo kale waxaan baaq u diray doorashada gudiga doorashada madax banaan iyo dhammaan gudiga doorashooyinka sidoo kale waxaan baaq u diraynaa walaalaheena galmudug uu hogaamiyo maxamed qoorqoor axmed qoorqoor iyo dhammaan ku xigeenadiisa qaybta baarlamaanka iyo gudiga doorashada heer gobol sidoo kale waxaan baaq u diraynaa walaalaha surre runtii deegaanadaas oo walaalaheena waxaan baaq u diraynaa kana codsanaynaa madaxda aan soo sheegnay in kursigaas uu ku qoran yahay 104 haddana loo tartamayo degmadaas loo tartamayo Dhuusamareeb loogu tartamayo waxay beeshu leedahay musharaxiin fara badan oo runtii xaq u leh inay kursigaas u tartamaan marada u tartamaya waxa la rabaa intaas oo madax aan soo sheegnay in loo cadaalad sameeyo dadka kursigaas u tartama iyo dib u dhac aad u fara badan oo ku dhacay degmada Tawfiiq konsolkii ma shaqeynayo gudoomiyihii degmada ma shaqeynayo wasiirkii ay lahaayeen ma shaqeynayo sida la aliyeed waxaan ka codsanaynaa dawladda Puntland oo hogaamiyo madaxweyne Dani iyo ku-xigeenkiisa iyo labada gole maamul goboleedka Puntland in si degdeg ah loogu soo magacaabo councilkii iyo maamulkii degmadu ay lahayd isla markaasna dawladdu ay samayso maqalka iyo dadka ay dhageysato dadka deegaanka xaqa u leh inay dhageysato dalabkooda iyo cidda iyagu ay markaas mas'uuliyadda u dhiibanayaan waxaan rabnaa ma doonayno qof aan dan u hayn una shaqaynayn bulshada in lagu habsaamiyo oo waqti looga lumiyo marnaba ma ogolaan karno mana qaadan karno waxaan rabnaa nin la jaan qaadi kara kana fakeraya ummadda beesha Salmaan Cabdalle iyo deegaanada ay degto dhammaantood xuquuqda ay ku leedahay maamulka Puntland nin ka soo qaadi kara dhammaanna waxaa leenahay maamulka Puntland xuquuqda beesha ay leedahay ama degmada Tawfiiq xaq u leedahay waa inay mar walba isha ku haysaa horumarka degmadana la hormariyaa waxyaalo badan baa runtii qabyo ka ah maadaama wax badan dhaynay waxa meesha ka muuqda khaladaad fara badan iyo habsan badan iyo wax qabad la'aan badan waxaan doonaynaa in ayadana dawladda Puntland u istaago arintaas shirkan sida horeba loo sheegay waa shirkii wada tashiga beelaha Salmaan Cabdalle iyo walaalahood laakiin inta shirka ku tashatay oo ku tashatay waa shirkii Salmaan Cabdalle dawladaha ama maamul goboleedyada waxa xilaftan ma yaqaaneen markaad ka hadasho waxay yiraahdaan waxaas waa dan guud oo hadda dan guud anaga ku shaqale waa yiraahdaan waa naqaan anagu waxaanu ka hadlaynaa waa waxaanu soo aragnay waa waxaanu dhowrka casho aanu joognaba u kuurgalaynay waa waxaanu aad iyo aad waxa looga baahan yahay aanu u soo xaqiijinay waxaanu ugu baaqaynaa marka dawladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka labadeeda gole isimada dhaqanka waxaan ugu baaqaynaa degmadan waxa weeye aad iyo aad ayaa waxa uga muuqda hullo xumo dib u dhac weyn baa ka muuqda dib u dhac weyn la isku haleeyay oo aan wixii joogana ka hadlin
nin kuwii maamulka hayay oo gobolkana ayaan yacni dee dan ka gelin waxaan aad iyo aad yacni oo dhegdheer uga hadlaynaa arrinkaas inay dhegdheer u yeeshaan baaqayaga inay dhegdheer u yeeshaan in degmada waxa ay u baahan tahay yacni si degdega loo soo gaarsiiyo ma aha wax yacni laablakaca ma aha wax miis baan istaaga waa hadlaya waa waxaanu aragnay konsolka ugu culus maamulka ruuxiisa waxa loo baahan yahay waxba isagana ka jira marka maamulka dad kale iyo iyaga ku shaqo leh xagga xataa deegaanka iyo wasiiru dawlaha u magacaaban haddee waa raggii la rabay wasiiru dawlaha iyo guddoomiyaha labaduba waa labadii ka hadli lahaa degmada oo danaheeda uga hadli lahaa haddii nimankaas haddii ay yacni ka seexdeen annagu ka seexan mayno mas-uuliyiinteedii baanu nahay inaanu ka hadalno xaq baanu ugu leenahay si yacni dhiiranna waa idinkula hadlaynaa si yacni waxaanu rajaynaynaa si yacni fudud in warkiina iyo waxqabadkiina noo soo gaaro aad iyo aad baan idiin salaamayaa wabilaahi tawfiiq shirkii wada tashiga beesha Saleebaan Cabdulle wajigiisa labaad ee ka socday degmada Tawfiiq oo ay hogaaminayeen salaadiinta isimada waxgaradka beesha Saleebaan Cabdulle wuxuu ku soo gabagaboobay si guul iyo isafgarad ay ku jirto waxayna dhaqanku salaan u dirayaan beesha Saleebaan Cabdulle meel kasto ay joogaan dunida dacaladeeda waxyaabaha ka soo baxay shirka waa sidaan soo socda qodobka koowaad waxa la isla qaatay in laga wada shaqeeyo lana xoojiyo midnimada wada jirka horumarinta beesha Saleebaan Cabdulle qodobka labaad waxa loogu baaqayaa dhammaan ganacsatada qurba joogta iyo qof kasta oo danaynaya in la maal gashado lagana wada shaqeeyo horumarinta degmada Tawfiiq iyo deegaanada ay degto beesha Saleebaan Cabdulle dhamaantood qodobka saddexaad waxa la isku afgartay meel kasta oo ay beeshu degto in lagula noolaado walaalahooda Soomaaliyeed nabadgelyo daris wanaag iyo ku dhaqanka shariicada islaamka qodobka afraad waxa lagu heshiiyey shir sanadeed si loo xoojiyo isku xirka iyo wada shaqaynta beesha Saleebaan Cabdulle qodobka shanaad isimada iyo waxgaradka beesha Saleebaan Cabdulle ee degta gobolada Puntland waxay cadeynayaan inaysan beeshu ku haysan maamulka Puntland wax matalaad ah marka laga reebo wasiiru dawle aysan beeshu ku haysan wax wada shaqayn ah oo u dhaxeeya beesha iyo dawladda iyo degmada Tawfiiq oo aysan ka jirin wax maamul ah sida konsulkii iyo gudoomiyihii degmada oo aan shaqayn sidaa darteed waxay isimadu iyo waxgaradku baaq u dirayaan maamulka Puntland oo uu hogaaminayo mudane madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa mudane Axmed Cilmi Karaash iyo guddoonka baarlamaanka mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labada gole ee maamulka Puntland iyo dhammaan isimada Puntlandba inay beeshu ka hesho matalaad dhab ah oo u qalanta miisaanka beesha Saleebaan Cabdulle ee degta gobolada Puntland iyo in la dhiso degmada Tawfiiq maamulkeedu iyo dhaxshan. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala.